muwaadin Swedish waxaan noqday sanadkan 2023 bishii koowaad ayaan muwaadin noqday. عمر عبد الله وويل دنيرها كل كان مقالة يافلا كان مده مواطنين تعصب هرانتي سنة كان لبكون سده لاتن هلا دلشبا سويدن كواسو انتو دحيسي بره جنايو إلا يبشي ما جسنة كان هيد وذرتو زو لاتن تدوكون سيال بخولي كونتورم خوفا أمي سنة لببخول صدن سيال كميدا هي أي أهايين دادكسو جيد الصوماليا خدباد وجيدي رئيس لوسار أولف كريستشون لحدي بشان أو هيد مالين تخارن كي سويدن oo jirtay 500 sano wuxuu qayb kaga hadlay isbeddelka muuqaal bulshadeed ee ka dhacay Sweden inta muddadaasi lagu guda jiray. På 500 år har Sverige också gjort en annan resa. Från ett land där de allra flesta liknade varandra till ett land med människor som har sina rötter i precis hela världen. 500 sano Sweden waxay samaysay safar kale oo ah waxay ahayd dal dadka ku nool isku wada eka balse waxay iminka noqotay dal ay ku nool yihiin dad asalkooda ka soo jeedo goobo kala duwan oo caalamka ka mid ahi ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. Dadkaasi kuwooda ugu cusub ee qaatay dhalashadii Sweden waxaa ka mid ah Umar Abdullahi oo isagu sheegaya walow go'aanka muwaadinimada Sweden uu helay sanadkan haddana inuu weligii dareen ahaan u aaminsanaa inuu ahaa muwaadin wanaagsan. Midda ugu horeysa horta waddankan waxaan imaaday anoo nin da'yar ah markaas ayaa waxaan ahay aan dareemay inaan muwaadin ahay marna wax baranay aan niyadeeda ku jirtay inaan noqdo muwaadin fiican oo waddanka haddii la dhaho shuruucdiisa aan u hoggaansano haddii la dhaho inaan shaqeeyo aan canshuur bixiyo sidaas aan dareemay inaan muwaadin sax ahay. intaas wanaagsan ee Umar uu ka hadlay waa ammaan uu ra'iisul wasaar Ulf Kristersson uu ka sheegay dad badan oo qaatay dhalashada dalka mar uu soo hadal qaaday laba cabaaqib oo ka dhashay muwaadiniinta cusub ee Sweden. Och vi ser två tydliga konsekvenser. Att jättemånga jobbar, försörjer sig själva och varje dag bidrar till helt. waxaan arkaynaa laba cabaaqib oo cadcad oo ah in badan muwaadiniinta cusubi inay shaqeeyaan oo ay ismasaruufaan waana kuwa maalin walba bulshada wax ku soo biiriya waana wax qurux badan ayuu yidhi. hadda waa maxay cabaaqibka kale ee cad ee ra'iisul wasaaruhu ku lamaanay midkani wanaagsan. Men vi ser också utanförskap i den stora migrationens och den dåliga integrationens spår. Det här skapar spänningar. Många som är födda här men som inte längre känner igen sig. Som upplever att förändringen har varit för stor och för snabb. balse sidoo kale waxaan arkaynaa dad dibadda ka jooga bulshada oo ka dhex muuqda soo galowtiga badan ee dalka yimid iyo isdhexgalka aan wanaagsanayn taasoo abuurtay xasarad oo dad badan oo aad u fara badan oo halkani ku dhashay ayaan iminka isu garanaynin cidda ay yihiin waayo arag waxay u noqonayaan isbeddelka inuu weyn yahay oo degdegna ku dhacayo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha. dadka cusub waxaa ka mid ah kuwa ku indha furtay hanaanka Sweden oo aan horey weligood u soo arkin dal shaqeynaya leh nidaam iyo shuruuc sidii Sweden waxaana ka mid ah Umar Abdullahi. anoo da'yar waddankay waa waddanka ugu horreeyay baasaboor aan ka qaato waa waddanka ugu horreeyay aan arko shuruucyo mise shaqo laga bixiyo canshuur. codkaas u dambeeyey waa Umar Abdullahi oo ka mid ah muwaadiniinta cusub ee Sweden iminka dhalashada qaatay.